قبيلي وكلمية لو قبيلي حجة داس بانو دوننا إنانو فرنو وأما كلمية كده بيو أما الرئيس قبيلي أنا قضاء لحد دماغ قراتي قرصها نو قرصي سنة وحوي هرتين إنه كلمية كلفوت قادنو الحكومة ده ونرنتا كجوجانو ولي بأنت كهر رئيسه دورشو يكون ثاني دعم لبض دورشو رجع بينا تاكو حساب تمام gudoomiyaha guddiga isxilqaantay ee dabagalka ansixinta gobolnimada Gabiley injineer Muuse Cabdilaahi Nuur ayaa ka hadlay wixii uu qabsoomay muddo sanad ah oo ay jirtay guddidaasi isla markaasina halkaasi ka sheegay waxa uu qorshaysan guddidan waxana hadaladiisii kamid ahaa muddo sanad ah ay guddidan dhisnay guddidu waxay ka kooban tahay oo ay ku tusmaysan tahay deegaanka iyo shacab weynaha reer Gabiley oo jufo u qaybsan sida deegaanku yahay muddada guddidu ay jirtay waxaan la kulannay way qabatay guddidu oo yaraa 8 kulan oo ay la kulantay si dhismaheedu u taab galo aanay noqoto wax midhadhal ah oo la isla ogol yahay maadaama anagu markii hore oo fikirkani ka soo baxay indhargarad iyo dad khubaro ah oo khibrad u leh dawladnimada iyo maamulka aqoon-yahana ay ka soo baxday fikirkan waxaan la tashi u sameeynay qaybaha kala duwan ee gobolka sida gudoomiyaha gobolka degmada gobolka Gabiley barsaabka maayarka degmada Gabiley oo lafdhabar u ah maayarada gobolka ka jira hal doorka iyo madax dhaqameedka gobolka xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolkan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta دكتور عبد الولي جامع ستة مقالة Gabiley قدوميات تقوى شاره وعن كتجي صلادينته وكوكي هاي سلطان إسماعيل سلطان عبدي لما كل ما ضاسي وهلا جوجر فيه ليسكو الراعي سدي لوه القليل لها إن قبل اللي بدأ Gabiley ومدرس أفريقيا فرت سنة reer Gabiley ka seexdeen waayo ilaa 1978 dadweynaha reer Gabiley gobolnimo ay doonayeen laakiin marka runta la sheego xagga gobol dadka reer Gabiley arintaasi ka fadhiday maantana waxaanu anagu fikirkaasi markuu naga yimid la tashanay inta aan soo sheegay waana la ansixiyay guddida in hawsha hareeraha laga galo anaguna aan hormood ka noqono waxaanu qabanay kaloo xaflado daafur lagu sameynayo arintaas oo ka bilaabantay 13 bishii saddexaad 2022 waxa kaloo aanu ku guuleysanay inaanu xafiiskan maanta aanu fadhino qalabayno aanu u furno hawshaasi waxaan jecelnahay dadweynaha reer Gabiley inuu sheegno marxaladda sanadka ee aanu hawsha wadnay wixii aanu qabanay iyo halka ay wax marayaan September 10keedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taasoo u gudbinay himilada iyo doonista shacabka reer Gabiley ay muddada inta leeg ay doonayaan gobolnimada annagoo afna uga sheegnay qoraal aad u qiimo badan oo dheer oo sharxayana u gudbinay madaxweynuhu si fiican buu noo qaabilay arrintaana annagoon uga doonayn inuu deegaanka ka soo jeedo laakiin sharciga iyo duruuf nidaamka ay buuxisay gobol Gabiley oo ah shuruudaha lagu doono awgeed iyo xaq ahaanshaha awgeed ayaan hornay waanu nala qaatay inuu hawshaas aan xaq u leenahay waxa kale oo la kulanay 8 Oktoobar waxaan u gudbinay wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed oo isna qoraalkaas u dhigma oo ah procedure-ka iyo sharcigu sidoo yahay sida gobolnimada lagu doono inay wasaaraddu ka mas'uul tahay iyadoo ay tahay inay golaha wasiirada horgeyso isagana waxaan u geynay October 8deedii isna si fiican buu arintaan looga qabtay loolana qaatay
inay ka gutaan wixii sharciga ah ee gobolnimada Gabiley xaq ay u leedahay dadweynaha waxaan u sheegaynaa reer Gabiley waxa la yidhi haddaad xooladooni xamar ag joog dad xooladooni xamar ag joog gobolnimada Gabiley ayay waxay ku jiraan waayo waxa lagu qaybsanayaa waa gobolnimada guddidayadani waxay xujo u tahay saddex qolo oo aanu isleenahay reer Gabiley ma iyagaan ka daacad ahayn gobolnimada inay doonaan oon arrin iyo muruq iyo maal iyo xoogba aan isku raacsanayn xujay u tahay maadaama maanta annagu aanu arrintaa xil qaadnay inaanu u dhaqdhaqaaqno waxay noqon doontaa arrin reer Gabiley lagu hubsan doono inay doonayaan iyo in kale xukuumadda kulmiye oo reer Gabiley adiga jeer ay ku faanaan ay goor walbana taageero kulmiye 19 sano ay reer Gabiley u ahaayeen taageerayaan 12 sano xukuumaddu hayay gobolnimada Gabiley waxa ku dhawaaqay oo sheegay oo magacaabay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo aan aad uga mahadnaqayno laakiin 12 sano ka dambeeyay Gabiley waa kulmiye waa Gabiley xujadaas baan doonaynaa inaanu furno oo ama kulmiye ka dhaweeyo ama reer Gabiley ay noqdaan laxduduma ogolaatay waayo xaqoodu in la yeelo weeyaan waqti gaaban arrimaha Allah subhanahu baan laga soo dhaxgalay inaanu kala food qaadno oo inkastoo nala qaateen waayo jaaniska Ilaahay baa siiyay xaqna u leeyihiin maadaama kulmiye xukun gacanta ku hayo anana ma naas sarmaseegin oo waanu gudbin sharciga sidoo haban marnay xaqna waanu leeyahay iyagaana dalka u taliya haddii aanay markaa nagu kalifinayno meel kala tagno uu guurno jaaniska kulmiye haysta waxaan leenahay waxaan jecelahay inuu gabagabayno insha Allah marka arrinta Allah subhanahu naga dhamaato waxaan arrinta ku soo gabagabaynayaa xujada labaad waxay saaran tahay reer Gabiley xujada saddexaadna waxay saaran tahay golayaasha baarlamaanka golayaasha baarlamaanku way dhaarsan yihiin waxaana u dhaarsan yihiin inay u xaq sooraan ummadda wixii Gabiley iyo gobollada kaleba ay leeyihiin ansixintooda ma aha in la isdulmo waxaan markaa golayaasha baarlamaanka uga digaynaa lascaanood imika wax ka kacay kacdoon ama xaq darraha tirsanayaan ama ha tirsanayaan cadaalad darraba tirsanayaan ficlan Gabiley baa xaq darro ku jirta doorashooyin baa soo socda waliba laba istaba fadhiya oo tii ururada lagu kala saarayay maanta wada urur baa tiin iyo tii doorashada madaxtooyada loo daba fadhiyo maayo cid dambe gobolnimada Gabiley ciddii waxa lala geli karaa uu noo furan yahay laakiin jaaniska kulmiye haysto iyo xukuumaddu haysato annana waa loo ogol lahay waana uga mahadnaqaynaa sidii ay noola dhaqmeen waa sax weeye guddoomiye waxa weeyaan waxaad noo sheegtay waxa la wixii magarata soo qabateen marka maxaa idin qorsheysan sanad ka doonaysaan inaad qabataan adoo soo koobaya qorshaha noo qorsheysan waxa weeyaan horta inaanu kulmiye kala food qaadno iyo xukuumadda oo arinta ka gugaano waliba inta ka horeysa doorashooyinku intaana dhicin waxa kale noo qorsheysan oo inta ka horeysa doonayaan sameeyno arrin ku saabsan aanu doonayno inaanu qabanno dood cilmiyeed ku saabsan gobolnimada Gabiley oo waliba dadka daayarta iyo dhalinyarta doonayno inaanu qabanno annagana wixii ay doonaan ayna weydiiyaan waxa kale noo qorsheysan inaanu sameeyno assessment baseline survey assessment waxa la yiraahdaa oo nu ogaano bal optionska aanu u marayno gobolnimada Gabiley waayo anagoo og in constraints iyo dhibaatooyin badan iyo challenges badan hortaagan yihiin inaanu qaadno waliba anagoo la kaashanayna dhalinyarta iyo dadka waxgaradka
inaynu kaana diyaarino oonu qaadno assessmentkaas waxa weeyaan sahamin baa la yidhaha Soomaaliga sahamin qiimeyn khiyaaraadka loo marayo aanu ku doonayno ma codkeenaan ku doonaa oo codkaan ku xisaabtanaa reer Gabiley ogaada ma golaha baarlamaanka horta arrintan ay taallaa ma waxaan samaynaa which option aan qaadanayo u marnaa gobolnimadana doonayno on ku doonaa taana inaan wax doonana sameeyno inkastoo dhaqaale u baahan tahay dhaqaalahana ogaada in badan baa reer Gabiley waxaan waxa u baahan yihiin maal iyo muruq iyo maskax bay u baahan yihiin waa in loo diyaar garoobo taasna saddex baan soo sheegay saddexaas aan noqon waa Cabsalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.